The ayes to the right, 322. The noes to the left, 306. So the ayes have it. The ayes have it. Unlock. Poris Johanson raysal wasaaraha dalka Britain waxa uu sheegay inuu shaaca ka qaadi doono qorshihiisa ku aadan ka bixitaanka Britain ee midowga yurub inkastoo xildhibaanadu ay taageereen mabda'a ah in dib loo dhigo xilliga ay Britain ka baxayso midowga yurub waxa uu wacd ku maray raysal wasaaruhu inuu toddobaadka soo socdo baarlamaanka hor keeni doono sharciyo lagu meel marinayo heshiiska Brexitka balse waxa uu midowga yurub weydiisan doonaa muddo kororsi ku aadan xilliga UK loo asteeyay inay ka baxdo midowga yurub kadib markii baarlamaanku ay taageereen mooshin loogu talagalay inay Britain midowga yurub ka baxdo heshiis la'aan xildhibaanada ayaa sidoo kale isniinta u codayn doona mooshin kale oo ku saabsan ka bixitaanka Britain ee midowga yurub taageerada xildhibaanada ayaa dhabarjab weyn ku ah raysal wasaare Poris Johanson kaasi oo marar badan ku celceliyay in UK midowga yurub ka baxayso iyada oo aysan dhicin wax heshiis ah xildhibaanada ayaa bishii la soo dhaafay sheegay inay ka hortagi doonaan in Britain ay midowga yurub ka baxdo heshiis la'aan Mr Johanson ayaa sheegay inuusan ka argagixin dharbaaxadii ka soo gaadhay baarlamaanka uuna ku hawlan yahay in sidii ay Britain dhamaadka bishan uga bixi lahayd midowga yurub isagoo oo ku salaynayo qorshihiisa Brexitka balse hogaamiyaha xisbiga Labourka Jeremy Corbyn ayaa yiri waa in raysal wasaaraha uu haata sharciga u hoggaansamaa waa inuusan ku sii hanjabin in Britain midowga yurub ka saarayo heshiis la'aan isagoo oo xubnaha baarlamaanka ku beertilacsanaya oo raba inay taageeraan qorshihiisa Brexitka waa Maxamuud Salabaan Somnius TV